السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة قلمة الشعب وحبة هايسنين نولشتي وهو سيسي كجرتو فقيرين إن أي دخلوا هذا الشنجر اللي بتجبران لمدة 6 سنة كلياتا. طبعا الديان قال لنا جمهورية البرازيل ها ده الآن وحبة هايسنين وفقيرين بنية عانة كلية دوفيا مدة 6 سنة قديه نوع حكون نقدن دلك 6 دونكم قنيسان دخلوا هذا السنة الله أنا وحنا نقضي هل دمع 3 تريليون دولار كأمريكان كا horumarka inta laga Brazil sameeyay waxa ka dambeeyay in wax barashadiisa asaaska ahayd aan dhamaysanin oo fasalka labaad iskuul ku day waana Lula da Silva in isagoo faqriga ku soo koray muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa taariikhdii Lula da Silva ku soo dhawaada muuqaalkan maanta Lula da Silva wuxuu dhashay 7 Oktoobar 1945 markii uu 7 sano jir gaaray hooyadii waxay soo kaxaysay sigii 6 carruur walaalahaayeen magaalada weyn ee Brazil ku taala São Paulo la yiraahdo aabihiina waqtigaa isagu yaraa aabihii daroogistuha oo aakhirkana daroogadaas u dhinta Lula da Silva aqoontiisu waa koobneed wax ma qori jirin waxna ma akhrin jirin ilaa uu daadii 10 jirka ka gaaray iskoolkana markii dambe fasalka labaad uu kaga baxay xaalad faqri soo wajahday uga soo xaafadooda u caawiyo wuxuu shaqo bilaabay Lula da Silva isagoo 12 jir waxaanu noqday baalashle fadhiista wadooyinka magaalada weyn ee São Paulo lagu magacaabo duruuftan adag ciyaarnimadiisa soo maray Lula da Silva waxa ka dhigi doonta nin adag sidoo ku arki doona markuu madaxweyne noqdo hooyadiina kaalin aad u muhiim ah ka ciyaartay dhisidda shakhsiyadiisa waxyaabo oran jiray Lula da Silva waxa kamid ah hooyadii waxay bartay sida madaxayga kor ugu qaadi lahaa iyo sida nafteedu ixtiraam lahaa say dadka kale ixtiraamaan Lula nin sabir badan adkaysi badan buu waxaana ku cadeynay taas san soo sheegnay inuu ahaa wadooyinka São Paulo la fadhiista baalashka dadka kaba masixi jiray soo kale inuu khudaar wadooyinka ku iibin jiray iyo inuu ka soo shaqeeyay kaalin shidaalkaas isagoo aad u da'yar iyo sidoo kale inuu ka soo shaqeeyay geerash lagu dayactiro gabaadhida maruu 19 jir Lula da Silva waxa ku dhacday maruu ka shaqeynay geerashka gabaadhida lagu dayactiro inay gacantiisa bidix faryaradu ka goodo dayacan ninkii geerashka iska lahaa weed dhacdadan kadib markii ay fartu ka gooday Lula da Silva wuxuu ka qayb galay urur Brazil ka dhisnaa waqtigaas oo lagu magacaab jiray ururka shaqaalaha oo loo aasaasay darteedina xuquuqda shaqaalaha lagu doodo oo dadkan ay u shaqeeyaan xaqooda looga soo qaado Lula da Silva ururkaas uu galay sababtoo ah markii fartu ka gooday daryeel ayuu waayay hadaba dhacdadan kadib Lula da Silva arrintan saameyn aad u weyn ku yeelatay oo wuxuu bilaabay inuu ka fikiro xaqa shaqaalaha iyo sidoo kale ahmiyadda ay leedahay in mujtamac cadaalad loo sameeyo iyadoo loo kala eegin dabaqada sare iyo dabaqada hoose Lula da Silva markaa dadaal aad u fara badan buu sameeyay waana ka muuqata runtii oo wuxuu gaaray heer uu noqdo ururkii shaqaalaha madax uu noqdo 1978 tirada ururkan dadka ku jirna waxa lagu qiyaasay in ku dhow 100,000 oo qof oo daafaha Brazil jooga oo intuu ay yihiin shaqaale 1980 mar inqilaab Brazil ka dhacay oo askari qabsatay xukunkii Lula da Silva markaa wuxuu jeediyay khudbad ka soo horjeeday askartan meesha qabsatay waana la xiray markii dambe waxa lagu xukumay xabsi 30 cisho isla sanadii 1981 maxkamadda askartu Lula da Silva waxa ku xukuntay 3 sano xabsi sababtoo hadallo xujeedii shacab kicin ay ku tilmaameen laakiin isla sanadkii ku xigay cafis baa loo fidiyay 1982 markii la gaaray sanadii 1989 Brazil waxa ka dhacay doorasho ka madax bannaan askartu waxay inqilaabtay macnaha doorasho lagu dhisay xukuumadda rayda Lula da Silva ka qayb galay doorashadaas laakiin nasiib darro wareegii koowaad baa lagu soo reebay sanadii 1992 Lula da Silva mar labaad buu isku soo sharaxay xilka madaxweynenimo ee dalka Brazil laakiin nasiib darro isla sidii hore kale ayaa wareegii koowaad lagu reebay aadana mar saddexaad 1998 Lula da Silva xilka madaxweynenimo doorashadiisa ku soo sharaxay laakiin aadana nasiib xumo wareegii koowaad baa lagu reebay saasay tahay oo 3 jeer doorasho soo galay 3 jeer buu wareegii koowaad si awood looga badiyay Lula da Silva man yaajab oo xisbigiisu intaas oo dhan uu kobcay oo xisbi mucaarad oo weyn buu noqonay inkastoo 3 jeer hore soo sharaxay Lula da Silva waay laakiin haddana isma diibin oo mar afaraad buu soo istaagay xilkii doorasho 2002 laakiin markan uu guuleystay waliba si aqlabiyad loo guuleystay 51 milyan oo cod buu helay
oo markaa u dhigmaysay 62% oo coda waana ninkii ugu horeeyay ee dhanka bidixda u janjeera ee madaxweyne ka noqday dalka Brazil ilaa intii jamhuuriyadda Brazil laga aasaasay doorashadii taa ku xigtay 2006 dhacdana soo kale mar labaad buu ku ceeshtay Lula da Silva oo si aqlabiyad ku guuleystay laakiin markii 2011 gaadhay sida dastuurka Brazil dhigayna madaxweynuhu laba jeer wax ka badan ku ceeshin karin ayuu Lula da Silva xilka wareejiyay laakiin muddada 8 sano hay wuxuu yeeshay taageero aad u fara badan shacabkina aad buu jeclaaday 2011 markuu soo istaagay xilka inuu wareejiyo soo istaagay shacabku ka diideen arintaas inuu ku ceeshto ayuu soo bandhigay laakiin Lula da Silva uu diiday inuu ku ceeshto waxaan u soo dagaalamay oo aan xabsi u galay in ay madaxdu aanay dhaafsanin intuu dastuurku ugu talagalay in xilka hayaan markaas sidee nafteedu ugu saamaxayaan waxaan shalay ka soo dagaalamay xabsi u soo galay aan maanta anigu sameeyo markii uu ka hadlay shacbiyadu Lula da Silva Brazil kula shacbiyadiisu aad buu weynay walibana gaar ahaan tabaqadaha hoose macna dadka faqiiriinta waxay ugu yeeri jireen geesigii faqiiriinta Lula da Silva intuu xilka hayay muddadii 8 sano waxyaabo asaasi waxa kamid in dadka fuqarada ama familka fuqarada uu biil u qoro laakiin aan iyaguna carruurtooda ku shaqeysan ay goobaha waxbarashada geeyaan marka noqoto dhaqaalaha Brazil Lula da Silva kaalin aad iyo aad u weyn buu ka ciyaaray dhaqaalaha Brazil waxaanu cadaalad u sameeyay dadkii dabaqada sare iyo dabaqadii hoose macna dadkii faqiiriinta ah dadkii taajiriinta ah waxaanu soo kala dejiyay khidad ku soo jiidanay shirkadaha ugu waaweyn adduunka inay maal gashtaan Brazil waana ku guuleystay waxaana guulihiisa cadeynaya muddadii 8 sano xilka hayay khidaduhu dejiyay waxa ka dhigtay Brazil dalka 8aad adduunka ugu qanisan hadda sanadkiina soo xareeyay dakhli dhan 1.3 trilyan oo dollarka Mareykanka waxaanu sabab u noqday in ka badan 20 milyan oo qof oo faqiiriin ah inay noloshooda hagaagto Lula da Silva muddadii uu xilka hayay kuma ekaan dhaqaale oo kaliya soo kale wuxuu cusboonaysiiyay ciidanka militariga oo waxaanu bilaabay askariyeynta wixii da'da 20 jir gaara macna waajib bay ku tahay militariga soo maro waxaanu noqday militariga Brazil ka ugu awoodda badan koonfurta America sanadii 2018 ayaa Lula da Silva lagu soo oogay dambi wax isdawmarina intuu xilka hayay laakiin Lula da Silva uu diiday inuu booliska isku soo dhiibo waxaanu sheegay inuu isku soo sharaxi doono xilka doorashada madaxweynenimada Brazil 2018 markii dambe laakiin militariga dalka Brazil ayaa soo farageliyay oo ku khasbay inuu Lula da Silva isku dhiibo askarta sidii buu Lula da Silva xabsiga ku galay doorashadiisina looga mamnuucay doorashadii 2018 ka soo qayb galay madaxweynenimada dalka Brazil waxa ku guuleystay Bolsonaro ninka lagu magacaabo hadda madaxweynaha ka دفعت لولا لتسليم نفسه إلى الشرطة وعلى إثر ذلك تم منعه من خوض السباق الرئاسي وأجريت الانتخابات ليفوز اليميني المتطرف والضابط المتقاعد جائر بولسونارو برئاسة البرازيل. Today, was initially sentenced to 9.5 years in prison before an appeals court raised the number to 12 years. Last month, in an interview with France 24, Lula continued to claim his innocence. I don't want a lighter sentence. I want my innocence. The correct word is innocence. intaasay noogu agtay halgankii Lula da Silva uu soo galay hadday noqoto inuu shakhsiyad ahaantiisa isliso iyo hadday noqoto inuu dadkiisa wax u qabto oo Brazil dhiso waxyaabaha ka faa'iideyna qisada Lula da Silva waxa kamid ah inaad himad sare yeelato salahan shalay baalash loo wadooyinka São Paulo fadhin jiray oo dadka kama masixi jiray ilaa heer uu ka soo gaaray maanta Brazil ku faanto soo kale waxaan ka baranaynaa in haddaad rabto ummadaada ama mujtamacaaga inaad anfacdo inaanad u baahnayn inaad dad badan soo ururiso laakiin shakhsi ahaantaada aad wax ku soo kordhin karto anfici karto ummadaada salahan Lula da Silva kaligiiba soo halgamay intii hore waxa kale oo ka baranaynaa qisada Lula da Silva samarkii adkaysiga 3 jeer oo isku xigta doorashada laga badiyay waliba si aqlabiyad oo wareegii koowaad lagu reebay laakiin intaas oo dhan kamay dhigin in iska fadhiyo ama istiiba mar afaraad buu soo istaagay ilaa uu ka guuleysanay waliba si aqlabiyad loo guuleysanay sidoo kale waxa laga faa'iideeyaa in haddii rabitaan xooggan ku jiro aan jirin wax ka hor istaagay inaad himladaada gaadho Lula da Silva oo arkayna wuxuu xabsi soo galay wuxuu duruufo adag soo maray laakiin ugu dambeyntii uu ka dhabeeyay inuu dadkiisa wax u qabto faqiirintana ka saaro kaalintan foosho xumay ku jiraan muuqaalkana maanta intaas ku eegi fadlan hadduu ku cajabay subscribe saar noola socoto muuqaalada dambe siina share gare wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh